بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شركان wuxuu ahaa shir wada tashi oo ku saabsan mas'uuliyadda saxafiyiinta Soomaaliyeed marka ay timaado danaha qaranka wuxuu socday waqti fiican oo ay isku arkeen milkiilayaasha agaasimayaasha tifaftirayaasha wardoonayaasha Soomaaliyeed iyo qaybaha kale ee saxaafadda ku jira ama warbaahinta waxa laga soo saaray ugu dambeyn warmurtiyeedka waxa laga soo saaray dhowr qodob dhowrkaas qodob waxa ay kala yihiin kow in wariyaasha Soomaaliyeed aysan dhexdhexaad ka noqon karin qadiyada la xiriirta difaaca dalka tan labaad in wariyaasha Soomaaliyeed ay iska hubiyaan xaqiiqda wararka ay daabacdo warbaahinta Kenya oo ay soo xigato warbaahinteena Soomaaliyeed saddex laga bilaabo maanta in warbaahintu aysan adeegsan ereybixinada qaar oo ku qaldan arintan taasoo aan tusaale ahaan soo qaadan karno ereyga ah muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya taas bedelkeedna aan isticmaalno badda Soomaaliya ee Kenya ay muranka gelisay qodobka afraad in wariyaasha Soomaaliyeed ay ka feejignaadaan tabinta wararka aan caawinaynin nabadda iyo wada noolaanshaha qodobka shanaad ee warmurtiyeedka ku jira waxa waaye in la sameeyo barnaamijyo iyo wareysiyo joogto ah oo laga qayb gelinayo dadka indhaha u ah bulshada Soomaaliyeed sida sharci yaqaanada qodobka lixaad in dawladda Soomaaliyeed ay wariyaasha siiso xogaha muhiimka ah ee jira iyada oo abuuraysa bar lagu soo hagaago xogaha ku saabsan arrimaha badda si looga fogaado in xog been ah ay bulshadu gaarto qodobka toddobaad oo ah qodobka ugu dambeeya warmurtiyeedkeena waxa waaye in si qoto dhow loola socdo saxaafadda adduunka waxa ay ka qorayaan gaar ahaan qadiyada Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaysa mahadsanidin